ku soo dhawaada casharadeenii taxanaha ahaa ee luuqadda Jarmalka. Leksiyon 3 cashirkeena saddexaad. Waxaan kaga hadli doonaa maanta casharkeenan konyaksiyoonan xidhiidhiyayaal. Dhammaan xidhiidhiyayaasha halkan kuma soo koobi karno. 5 konyaksiyon ayaan ka soo qaadanay ama xidhiidhiye. Haddaba was ist eine Konjunktion ama was sind Konjunktionen? Muxuu yahay xidhiidhiye amba xidhiidhiyayaal? Konjunksion amba xidhiidhiye waxay isku xidhaan oo ay ama isku qabtaan forta ereyada ama ereyada kooxaha ah amba jumladaha Hauptsätze iyo Nebensätze. Tusaale ahaan xidhiidhiyayaashani laba jumladood oo laba meel kala yaala ayay hal jumlad ka dhigaan. Sidaas darteed ayaa loo yidhi xidhiidhiyayaal amba waxbay isku xidhaan. Haddaba shantan xidhiidhiye waxay kala yihiin und iyo oda ama aba laakiin sondern amaba laakiin labada macnoba way yeelataa. Den maxaa yeelay? Haddaba aynu ka bilowno konjunksionka ama xidhiidhiyaha u horeeya und iyo ich liebe dich waan ku jeclahay. Ich möchte dich heiraten waxaan rabaa inaan ku guursado. Halkan waxaa inoo yaala laba jumladood. Haddaba aynu eegno bal siduu xidhiidhiyuhu labadan jumladood iskugu keenayo ama iskugu darayo. Ich liebe dich und ich möchte dich heiraten waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan ku guursado. Waxaad aragtaan xidhiidhiyuhu inuu isku xidhay labadan jumladood uu isku keenay. Haddaba ich liebe dich waa Hauptsatz ama waa jumlad Hauptsätze ah. Halka ich möchte dich heiraten iyaduna ay tahay Hauptsatz, laba Hauptsatz oo isku tegay. Haddii aad rabtid Hauptsatz wuxuu yahay in aad si fiican u fahantid ku noqo cashirkeenii labaad ee A2ga. Haddaba sida halkan idinka muuqataa feebka amba ficilka jumladdu waxa weeyaan waa liebe ta koowaad halka talabaadna ay tahay möchte. Labaduba waxay ku jiraan booska labaad ee jumladda. Sidaas darteed ayaa loo yidhi jumladaha Hauptsatz amba Hauptsatz. Haddaba waxaa jira in xidhiidhiyayaasha qaarkood amba konjunksionada qaarkood ay ficilka jumladda geeyaan booska ugu dambeeya. Jumladahaas ayaa waxaa loo yaqaanaa Nebensätze amba Nebensatz. Haddii aad u baahan tahay inaad wax badan ku ogaato jumladahaasi waxaan kaga soo hadli doonaa cashirkeenan cashirka ku xiga. Haddii kale oo aad rabtid in aad ka ogaatid waxay Nebensatze yihiin waxaad ku noqotaa cashirkeenii labaad ee A2ga halkaas oo aan kaga hadalnay Hauptsätze iyo Nebensätzeba si guud aan ugaga hadalnay. Aanu eegno jumladan kalena ich esse einen Hamburger und ich trinke einen Saft. Waxaan cunayaa hamburger iyo waxaan cabayaa sidoo kale sharaab. Haddaba si labada jumladoodba idinka muuqata subjectiga amba ficil sameeyaha jumladda ee ah ich laba jeer ayuu ku soo kala noqday jumladda. Marka mid ka mid ah uma baahnid iska tirka hoose badana. Waad odhan kartaa ich esse einen Hamburger waxaan cunayaa hamburger und trinke einen Saft waxaan cabayaa sharaab. saas ayay ku qurux badan tahay jumladdu. Aynu eegno jumladan saddexaadna Abdi und Ilmi gehen am Wochenende zum Fußball. Abdi iyo Cilmiba waxay tegayaan kubad usbuuc dhamaadka. Aynu eegno konjunksionka xiga oda. Oda waxaa loo isticmaalaa badanaa markaad laba shay kala dooranaysid. Aad leedahay kaas ayaan sameynayaa makan. Tusaale ahaan Wir fahren zu Oma oder bleiben wir zu Hause. Waxaan u tegaynaa amba aadaynaa ayeeyo amba guriga ayaan joogaynaa. Wir fahren zu Oma oder bleiben wir zu Hause. Waa inaad markaa mid doorataa. Doorashadaas ayaa loo isticmaalaa oda badanaa. Aynu eegno jumladan kalena am Wochenende besuche ich meine Oma oder ich besuche meine Tante. Usbuuc dhamaadka waxaan booqanayaa ayeeday amba waxaan booqanayaa edaday. Sida halka idinka muuqata ich besuche laba jeer ayay soo noqotay. Mid ayaad iska masixi kartaa oo odhan kartaa am Wochenende besuche ich meine Oma oder meine Tante.
Usbuuc dhamaadka waxaan booqanayaa ayeeday amba edaday. Saas ayay jumladu ku qurux badan tahay. Ayna sax ku tahay. taa kale isticmaashidna laftirkeedu waa sax laakiin sidan ayaa kaaga fiican. Aynu eegna xidhiidhiyaha xigana aba laakiin Ich arbeite gern, aber mein Job ist langweilig. Ich arbeite gern, aber mein Job ist langweilig. Waan jeclahay shaqadayda ama waan jeclahay inaan shaqeeyo laakiin shaqadaydu waa mid caajis ah ama caajis badan. Ich wollte ins Kino gehen, aber alle Tickets waren ausverkauft. Waxaan doonayay inaan tago shaleemo, ama hakad laakiin tigidhadii oo dhan waa la iibiyey. Mar kastood isticmaalaysid konyaksiyonka aba hortiisa ama inta aanad aba xagga ka horeysa waxaad dhigi kartaa ama dhibic. Waa kan tusaale kale. Meine Lehrerin ist nett, aber streng. Meine Lehrerin ist nett, aber streng. Macalimadaydu way fiican tahay laakiin waa mid adag amba waa mid adag. Aynu eegna xidhiidhiyahan kale ama konyaksiyonkan kale sondon macnaheedu way noqotaa laakiin amaba labada macnoba way yeelataa. Wir fahren nicht nach Somalia, sondern nach Schweden. Soomaaliya uma socdaalayno laakiin waxaan aadaynaa Sweden. Sida halkaa idinka muuqata halkii aan odhan lahayn wir fahren nicht nach Somalia, sondern wir fahren nach Schweden ayaan ka saarnay. Intii kale oo jumladu waxaan kusoo koobnay keliyaata inta aad aragtaan. Kolba kii idin fudud ayaad isticmaali kartaan. Ich bin kein Fan vom FC Barcelona, sondern von FC Real Madrid. Ma ihi taageere Barcelona ah laakiin ama taa beddelkeeda waxaan ahay mid Real Madrid ah. Sie kommt nicht heute, sondern morgen. Sie kommt nicht heute, sondern morgen. Ma imanaysa maanta laakiin waxay imanaysaa berrito. Sida halkaa idinka muuqata halkii aan odhan lahayn sie kommt nicht heute, sie kommt morgen xaggan odhan lahayn ayaan jumladda sidaa kusoo koobnay. Liebt mich nicht. Isagu ima jecla aniga. Sondern liebt Asha. Laakiin wuxuu jecel yahay Caasha. Sida halkaa idinka muuqata subjectiga amba liebt ayaa 2 jeer kusoo noqotay. Markaa ta u dambaysa iska tir adigoo odhan kara liebt mich nicht, sondern Asha. Isagu ima jecla aniga laakiin Caasha ayuu jecel yahay ayaa laga wadaa. Waxaad isticmaalaysaa konyaksiyonkan ama xidhiidhiyahan marka aad bixinaysid sabab amba aad sheegaysid sabab shay aad sheegaysid ayaad isticmaali kartaa konyaksiyonkan ama xidhiidhiyahan aad leedahay maxaa yeelay amba sidaa iyo sidaas aad leedahay. Ich habe Stress, denn morgen habe ich eine Prüfung. Ich habe Stress, denn morgen habe ich eine Prüfung. Culays ayaa isaaran ama stress ayaa i haysta maxaa yeelay berrito ayaan imtixaan leeyahay. Aynu eegno tusaalaha xiga. Ich arbeite heute nicht, denn ich bin krank. Maanta ma shaqaynayo maxaa yeelay waan xanuunsanahay. Sida halkan kaaga muuqata sabab ayaad sheegtay oo ah in aad xanuunsanaysid. Ich arbeite heute nicht, maanta ma shaqaynayo. Sababtii ayaa lagaa rabaa oo tiri haddana denn ich bin krank maxaa yeelay waan xanuunsanahay. Sabab ayaad sheegtay. Haddaba haddii aad casharka fahantay isku day inaad ka jawaabtid su'aalahan. Muuqaalka istaajiso markasta oo aad rabtid inaad su'aal ka jawaabtid. Kee ku habboon saddexdan xaggan yaala markasta oo aad rabtid inaad ka jawaabtid su'aasha muuqaalka istaajiso. Abdi muss sich beeilen. Abdi waa inuu dhaqsadaa meel bannaan. Der Zug kommt gleich. Tareenka imanaya maxaa galaya ee ku habboon xagga. Jawaabtu waxay noqonaysaa Abdi muss sich beeilen, denn der Zug kommt gleich. Abdi waa inuu dhaqsadaa maxaa yeelay tareenka ayaa imanaya. Dhaqso u imanaya ama degdeg u imanaya ama imika imanaya. Su'aasha labaad. Kee ku habboon saddexdan?
Ich gehe ins Bett. Meel bannaan. Ich bin müde. muuqaalka istaajiso isku day inaad ka jawaabtid. jawaabtu waxay noqonaysaa den. Ich gehe ins Bett. Den ich bin müde. waxaan tegayaa sariirta maxaa yeelay waan daalanahay. saddexdan kee ku habboon su-aashan iyadana. Tom fil gaat faaqan. meel bannaan ee fil ishfiman gehen. muuqaalka istaajiso ka jawaab. jawaabtu waxay noqonaysaa oda. Tom fil gaat faaqan. oda ee fil ishfiman gehen. Tom wuxuu rabaa inuu baaskiil kaxeeyo amba inuu dabaal tago. danke mahadsanid. waad ku mahadsan tahay intaad dhegaysatay ee aad daawatay. waan rajaynayaa inaad wax badan casharka ka wada fahanteen. haddii aad casharka ka heshay fadlan u sheer garee oo la wadaag asxaabtaada iyaguna jecel inay bartaan luuqadda Jarmalka. haddii aad nagu cusub tahay ama aad kanalkeena ku cusub tahay fadlan subscribe saar si aad ula socotid cashar kasta oo aan soo gelino barteena YouTube-ka.